magacaygu waa Gamaadid waxaana joogaa Qobrus qaybta waqooyiga. Qobrus markuu ugu horeyso waa laba qaybood ama Cyprus dadka qaar sidee u yaqaanaan. Labada qaybna waxay kala yihiin qayb waqooyi ah iyo qayb koonfur ah. Qaybta waqooyiga waa qaybta aniga aan joogo oo waxa maamula Turkiga. Qaybta koonfurtana waa qaybta kale ee Greek oo maamulo oo dal ahaan la aqoonsan yahay. Qaybta waqooyiga aan joogo sidee ayaa lagu iman karaa? Dhowr hab ayaa ku iman kartaa. Hababka ugu fududna waxaa kamid ah ardaynimo inaad ku imaadid iyo sidoo kale haddii ardaynimo ku suurtagelaynin in lagu keeno guur xaaskayga ama ninkayga. Haddii ardaynimo aad ku imaanaysid maxaa lagaaga baahan yahay? Kow inaad baasaboor haysatid, shahaado aad haysatid, sidoo kalena sawir teesara aad haysatid. Saddexdaas document ayaa lagaaga baahan yahay. Kadibna waxaa lagu dalbayaa admissionka jaamacadda oo ah midka ugu muhiimsan oo ka caawinayo ama ku suurtagelinayaba inaad wadankan soo gashid. Admissionka jaamacadda markii lagu xareynayo waxaa lagaaga baahan yahay documentiyashaada iyo sidoo kale deposit jaamacadda ay ka qaadayso oo ah hal semester lacagtiisa oo kale. Jaamacadaha way ku kala duwan yihiin depositka ay qaataan. Qaar waxaa jira 1500 euro ah, qaar 1200 ah. Marba jaamacadda aad rabtid ayay ku xiran tahay. Jaamacadahana way ku kala duwan yihiin. Marka depositkaas jaamacadda markii aad shubtid waxaad helaysaa warqadda aqbalaadda jaamacadda oo ah admissionki. Taas markaad heshidna waxaad goosan kartaa tigidhkaaga wadankan waa soo gali kartaa. Balse inta aadan soo galin wadanka waxaa muhiim ah inaad iska xaqiijisid in magacaaga uu yaalo immigrationka. Awal hore waxaa la sameyn jiray jaamacadda inay u gudbiso macluumaadkaaga immigrationka Qobrus oo aad markaad elaboorka imaadid magacaagu halkaas yaalo. Balse hadda way fududeeyeen oo waxaa laga dhigay in adiga ama qofka agency-ga ku xareynayo waxaan ku dhameynayo in uu macluumaadkaadu u gudbiyo immigrationka adigoo isticmaalayo hab online ah. Marka habkaas online ka ah ayaa macluumaadkaaga loogu gudbin karaa immigrationka. Marka aad imaadidna halkaas magacaagu already wuu yaalaa. Intaas kaliya ayaa lagaaga baahan yahay si aad wadan ku soo gashid. Fiisihiisu waa on arrival oo elaboorka ayaa laga qaataa waana free. Habka guurkana waa in qof xaasnimo uu kugu keeno ama naag ha ahaato ama nin ha ahaado. Taasna waxaa laga rabaa inuu ku process gareeyo qofka inta joogo oo kugu keenaya xaasnimada. Dabcan asaga ayaa ku sheegay markaas ayada wixii lagaaga baahan yahay oo macluumaad ah iyo qarashka ah. Waana heshiis oo waxay ku xiran tahay qofka markaas ayada ah processkan ku sameeynaayo. Su'aasha kale oo muhiimka dadka isweydiiyaan waxay tahay sababta dadka looga celiyo halkan. Waxaana sababteedu ay tahay kow horta in mararka qaar dadka ay wataan documentiyal fake ah ama document u eg fake. Immigrationka markaad imaadid ma jirto documentigaaga system la gelinayo oo cadeynaya inuu fake yahay, balse markay fiiriyaan warqadaada ama shahaadadaada waxa qofka uu u maleyn karaa mararka qaar inuu fake tahay ayadoo original ah xitaa inuu fake ayuu u maleyn karaa. Marka qofka meesha jooga waa bini aadan asaga ayayna ku xiran tahay sidoo uu ku arko. Markaad immigrationka imaadid su'aalo ayaa macquul in lagu weydiiyo oo ah xageed u socotaa, maxaa baranaysaa, jaamacadeed u socotaa, shahaadada iyo warqadahaaga macluumaadka ku qoran kaliya ayaa lagu weydiinaya. Wax aad u weyn oo kale oo ka baxsan intaas oo lagu weydiinayo malahan. Sidoo kale waxaa muhiim ah in aad wadatid pocket money ugu yaraan $500. Dabcan pocket money-ga aad ayuu muhiim u yahay. Haddii lagu celiyo maxaa dhacaya marka? Haddii lagu celiyo horta depositka jaamacadda aad bixisay ma soo laabanayo. Sidoo kalena admissionkaas isaga ah kaama gubanayo oo waad ku soo laaban kartaa mar kale. Wadankana waad soo gali kartaa mar kale. Qodobka muhiimka ugu dambeeyay ku soo gabagabeynaa waxay tahay in dadka qaar imaanshaha meeshan say ku imaan karaan inaysan qaarkood aysan fahansaneen. Haddii aad rabtid inaad Turki tagtid oo kadibna aad Qobrus ka sii gashay meeshaas. Dabcan fikirkaas aad ayuu khaldan yahay. Turki qofka joogo iyo qofka Soomaaliya joogo way u siman yihiin halkan. Qofka Turki joogo markuu inta imaanaya isagana waa in uu maraa nidaamka qofka kale uu ku imaan lahayo kale. Balse ma jirto wada fudud oo aad ku imaan kartid oo ka duwan taas. Wixii macluumaad aad u baahantiin intaas dheer oo ila soo xiriir kartaan Instagram shaashada ku qoran ayaa ila soo xiriir kartaan. Intaas ayaana ku soo koobaya macluumaadka Cyprus. Haddii aad weli jirto subscribe saarnin fadlan subscribe saaro gambalelkana furo muuqaalka like saar sida badan u gaaro. Intaan ku kulmayno muuqaalka xigay waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.